madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay ururada bulshada rayidka ee aan dawliga ahayn kulankaasi oo ay qayb ka ahaayeen xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo dhammaan madaxda ururada bulshada rayidka ayaa waxa laga wada hadlayay isla markaasina lagu falanqeynayay qaabkii ay ururada bulshada rayidka ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashada 13 November ka qabsoomaysa dalkan Soomaaliland ee lagu dooran lahaa madaxweynihii 5 sano ee soo socota hogaaminayay haddaba kulankani ayaa ahaa mid ay warbaahintu dibad joog ka ahaayeen balse markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warfidiyeenka la hadlay isla markaasina kulankaasi ka warbixiyay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Aadan Cigad Dayir oo isagu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha halkaasi laga wada hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo wuxuu maanta la kulmay kulan ballaaran la yeeshay ururada bulshada rayidka oo hortiina taagan madaxweynuhu waxa kale oo kulano hore la yeeshay lixda murashax saddexda madaxweyne u tartamaya iyo saddexdooda ku xigeen toddobada xubnood ee komishanka qaranka wasaaradaha ay sida tooska u khasayso arrimaha doorashadu iyo talaliyaasha guud ee ciidamada oo uu kula hadlay habsimi socodka doorashada iyo in la ilaaliyo anshaxa asluubta iyo nidaamka u dejisan doorashada kulanka hore madaxweynuhu si fiican ayuu xog waran uga dhageysay komishanka doorashooyinka qaranka iyo saddexda murashax iyagoo ballan qaaday inay ku dhaqmi doonaan shuruucda u dejisan doorashada isla markaana ay ku qanci doonaan ninkii alla u qadaro inuu kursiga ku fadhiisto kulan kale ayuu madaxweynuhu la yeeshay salaadiinta culimaa diinka iyo ganacsatada dalka kulanka laftiisu wuxuu daarnaa in la isku dhiirigeliyo la iskana waraysto si dalkeena uga qabsoomi lahayd doorasho xor oo xalaal ah ninkii Ilaahay u qorana loogu hambalyeeynayo ururada bulshada rayidkii door aad u muhiim ah ay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u hayaan kama mid aha xukuumadda kama mid aha xisbiyada tartamaya komishanka qaranka kama mid aha haddana xil muhiim ah oo inta u dhigma ay hayaan ilaalinta xuquuqda bini'aadamka ilaalinta saxaafadda xuquuqda haweenka dhalinyarada iyo guud ahaanba hawlo kale oo muhiim ah ayay u hayaan sidaa awgeed madaxweynuhu 2012kii doorashadii golayaasha deegaanka ka hor 5 cisho iyadoo ka harsan tahay bulshada rayidka uu la kulmay maantana madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray si uu dardaaran iyo sagootis iyo wada tashi ula yeesho halkan hortiina taagan yihiin aad ayay ugu mahadsan yihiin guud ahaanba hawsha qiimaha leh ay qaranka u hayaan madaxweynaha way uga mahadnaqeen soo dhaweynta iyo la tashiga iyo ka qaybgelinta talada dalka kulba meeshii ay maslaxadda ummadda ku jirto madaxweynuhu sidoo kale iyaga wuxuu uga mahadnaqay hawsha baaxadda leh ay qarankeena u hayaan ururada bulshada rayidka kiisa Mustafa Saad Dambiil oo ah gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf oo isagu ku hadlayay afka ururada bulshada rayidka ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay waxyaabaha madaxweynaha ka wada hadleen iyo kulankan wixii lagu wada qaaday sidoo kale waxa uu bulshada ku dhaqan Soomaaliland u soo jeediyay in ay dhinac uga soo wada jeestaan sidii ay doorashadaasi uga qabsoomi lahayd si amniya isla markaasina waxa uu tafaasiil dheer ka bixiyay maraaxiladii kala duwanaa iyo doorashooyinkii kala duwanaa ee dalkan ka soo qabsoomay waxana hadaladiisii kamid ahaa doorashada halkan wuxuu ku qaabilay isla ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland waxay gacanta ku hayaan hawlo aad u muhiim ah oo ay ugu weyn tahay goobjoogayaasha maxalliga ilaalinta xuquuqul insaanka doorka dhalinyarta haweenka dadka laga tirada badan yahay dadka aan laxaadkoodu dhameeyay ay ku yeelanayaan doorashada dimuqraadiyadda geed socodka iyo hanaanka dalkan u socdo waxa iyaduna runtii meesha ku jirta saxaafadda iyo doorka iyaduna ay ku leedahay arrimaha doorashada marka halkan madaxweynaha waan is xog wareysanay madaxweynaha odayga qaranka waxaanu halkan u soo jeedinay maadaama doorashadan ay tahay doorashadii uu ku sagootiyay hoggaanka dalka in la rabo odaytinimadiisa iyo
awoodda gacanta ugu jirtaba inaynu adeegsano maanta inaynu doorasho xor oo xalaal ay dhacdo. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayay lameynta bulshada Somaliland oo ay ka mid yihiin salaadiinta waxgaradka aqoonyahanka ganacsatada ururada bulshada kala duwan ee rayidka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xilalka kala duwan ka haya dalka si looga wada hadlo sidii loo adkeyn lahaa amniga ee meel looga soo wada jeesan lahaa si doorashada madaxtooyadu ay u qabsanto si xasiloon iyo nabad ah. Boqor Axmed Cabdi, Somali News TV, Hargeysa.